Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Waxaan muuqaalkan gudihiisa idinkugu soo gudbin doonaa qiso la yaab leh oo ka oohisay malakul mawdka. Qisadaasoo sidoo kale marna ka qoslisay, marna cabsi gelisay malakul mawdka. Haddaba dhammaysa muuqaalkan si aad u ogaato waxa ay ahayd qisadaas iyo waxa ay ku saabsaneed intaba. Balse ka hor inta aan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay, fadlan ha ka iloobin janalka in aad subscribe saarato si aad inoo dhiirigeliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala malakul mawdka u soo diray si uu nafta ooga qaado haweeney ka mid ahayd dadka. Balse markii uu malakul mawdka haweeneydii u imaaday si uu nafta ooga qaado, ayaa wuxuu arkay in ay keligeed tahay oo uusan qofna ka ag dhoweyn. Markii laga reebo cunugeeda yar oo ay naaska nuujinaysay, waxayna ku sugnaayeen dhul saxaro ah oo cidlo ah oo aysan dadba ka dhoweyn. Markii uu malakul mawdku arkay xaalkeeda iyo cunugeedan yar oo mujuqa ah oo ay wadatay, iyo isagoo u yimid si uu nafta ooga qaado, ayuu malakul mawdkii ishayn kari waayay oo la ilmeeyay xaalkooda, isagoo u calool xumaanayay cunuga yar oo sabiga ah. Cunugaasoo aan hadli karin oo aan soconna karin, socodna meel ku gaari karin, oo cidna u qayla dhaansan karin. Sidoo kale aysan jirin cid ka ag dhow oo biyo xataa dhuunta uga qoyso, oo hooyadiisna nafta laga qaadayo, iyo isagoo ku qasban in uu fuliyo wixii loo soo diray. Markaas buu hooyadiisa nafta ka qaaday oo isaga tegay siduu Alle ku amray subxaanahu wa tacaala. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala quraankiisa kariimka dhexdiisa ku yidhi: laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun. Malaa'igtu waa kuwo aan ku caasinin wuxuu Alle ku amro subxaanahu wa tacaala, waxayna mar walba u taagan yihiin fulinta amarka rabbigooda subxaanahu wa tacaala. Markii ay dhacdadaas ka soo wareegtay sanado fara badan, ayaa wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala malakul mawdka u soo diray si uu nafta ooga soo qaado nin ka mid ahaa dadka. Markii uu malakul mawdku u yimid ninkii oo lagu amray in uu nafta ka soo qaado, ayaa wuxuu arkay in uu yahay ninkan nin oday ah oo waayeel ah. Wuxuuna u yimid isagoo ushiisa ku taagan oo ag taagan nin tumaal ah. Wuxuuna ninka tumaalka ahaa ka dalbanayay in uu u sameeyo fadhi ama taaka bir ah oo uu gashto usha salkeeda si aysan bacaadka ooga dhexgelin. Wuxuuna tumaalka kula dardaarmayay odaygan in uu ka dhigo taaka adag si ay ushiisa u sii jirto sanado fara badan. Markaas baa wuxuu malakul mawdkii iska celin waayay in uu ku qoslo oo uu la yaabo dadaalka uu odaygan ugu jiro si uu sanado badan u sii noolaado. Hase ahaatee, isagoo weliba da'dan aadka u weyn jiro, iyo sida uusanba u ogeyn cimrigiisa in ay ka dhiman tahay daqiiqado kooban oo keliya. Markaas buu Alle subxaanahu wa tacaala malakul mawdka u soo waxyooday, isagoo ku yidhi: fabicizatii wa jalaalii ina aladii abkaaka huwa aladii adxakaka. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala malakul mawdka ku yidhi: cisigayga iyo jalaalnimadayda ayaan ku dhaartaye, midkii kaa oohiyey waa isaga oo haddana kaa qosliyey. Subxaan allah, Alle qudradiisa iyo awooddiisa. Odaygaani wuxuu ahaa wiilkii yaraa oo uu hooyadiis meel cidlo ah nafta uga soo qaadi jiray malakul mawdka, oo uu sababtiisa u ilmeeyey una naxay cunugan yarka ah,
maadaama uu yahay cunug yar oo aan hadli karin, sidoo kale uu joogay meel saxaro ah, cid u dhowna ay jirin, hooyadiisna uu rabay inuu nafta ka qaado. malakul mowdka wuxuu odaygan noqday aadka u da'da weyn wiilkii yaraa oo hadda ka hor ka oohiyey. isla asigii ayaana ka qosliyey malakul mowdka, wuxuuna ku qoslay dadaalkiisa iyo handheeridiisa awgii, iyo sida uu u jecel yahay in uu asoo cimrigan jiro sanado badan adduunka sii saarnaado. balse maxay ahayd arrinta cabsi gelisay malakul mowdka? waxaa jirtay arrin saddexaad oo cabsi gelisay. waxaan ka soo hadalnay hadda arrin ka oohisay malakul mowdka iyo sidoo kale arrin ka qoslisay. arrinta u dambaysaah waxay ahayd arrin cabsi gelisay malakul mowdka. haddaba arrinta cabsi gelisay malakul mowdka maxay ahayd? wuxuu alle subxaanahu watacaalaa malakul mowdka ku yidhi, maxaa ku cabsi geliyey? wuxuu yidhi, waxaa i cabsi geliyey markii aad igu amartay in aan nafta ka soo qaado nin caalim ah oo culimmadaada ka mid ahaa. waxaan arkay iftiin ka soo baxaya qolkiisa. ninkaa marba marka ka dambaysa oo aan u sii dhowaado qolkiisa, wuxuu iftiinku sigayey inuu dib ii celiyo. wuxuuna yidhi, waxaan ka cabsaday iftiinkiisa anigoo nafta ka qaadaya. haddaba ninkaas wuxuu ahaa ninkii uu ka cabsaday ama uu ka argagaxay malakul mowdka. waan filayaa walaalaha qaaliga ah in aad ka faa'iidaysateen qisadeenna maanta, taasoo ku saabsanayd 3 arrin. arrinta koowaad oo ahayd arrintii ka oohisay malakul mowdka. arrinta labaad oo ahayd arrintii ka qoslisay malakul mowdka. iyo arrintii saddexaad oo ugu dambeysay oo ahayd arrintii cabsi gelisay malakul mowdka. haadaa wallaahu subxaanahu watacaalaa aclaa wa aclam, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا داوده ha iloobin muuqaalka inaad like saarto oo aad la sii wadaagto asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirigeliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.